nin u dhashay dalka Japan ayaa lacagna 360 kun oo si qalad ah loogu siiyay gargaar COVID-19 ah ayaa la xiray kadib markii uu sheegay in uu lacagta ka qaatay qadka. Ninkan ayaa hadda xabsiga ku jira kadib markii la xiray isagoo looga shakisan yahay inuu ku xadgudbay sharciyada khiyaanada kombiyuutarka. Sarkaal ka tirsan waaxda booliiska gobolka Yamaguchi ee galbeedka Japan ayaa sidaas sheegay Khamiistii. Maamulka deegaanka ayaa si isa soo taraya uga quustay inay lacagtooda dib uga helaan 24 jirkan kaasoo sheegay inuu ku soo celin doono lacagta cadaanka ah si tartiib ah. Qaladaadka ee sameeyay maamulka magaalada Abu iyo in ninkan uu bixin waayay lacagihii ayaa care ka dhaliyay dalka Japan iyadoo barnaamijka lagu falanqeynayo doodaha lagu falanqeynayo xaaladda dhaqaale ee cakiran. Waxaa lagu wareejiyay lacag dhan 46.3 milyan oo yen si qalad ah bishii hore. Deeq lacageed oo loogu talagalay dadka deegaanka dakhliga yar ee uu saameeyay masiibada COVID-19. Ruushka ayaa bilaabay in uu u adeegsado nooca hubka cusub ee laserka gudaha Ukraine kaas oo awood u leh in uu ka garaaco bartilmaameedka meel 5 kiiloomitir u jirta sida uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka Yuri Borisov iyadoo hubka reer galbeedku uu ku soo qulqulayo Ukraine. Wakaaladda wararka ee taas ayaa ka soo xigtay Borisov mar uu ka sheegay telefishinka qaranka Arbacadii in nuqulka hubka laserka cusub lagu tijaabiyay talaadada diyaarad drone ah taasoo lagu gubay 5 ilbiriqsi gudahood. Borisov ayaa sheegay in jiil cusub oo hubka laserka ah uu ugu dambeyntii u ogolaan doono Ruushka in uu ilaaliyo gantaaladiisa qaaliga ah ee riddada dheer. Wax yar ayaa laga ogyahay waxyaabaha gaarka ah ee laserka cusub. Putin waxa uu xusay mid la odhan jiray Brezhnev oo loogu magac daray dagaalyahankii Orthodox-ka ahaa ee Alexander Brezhnev kaas oo ku dhintay dagaal. Borisov ayaa shir uu ku qabtay Moscow ka sheegay in Brezhnev mar horeba si weyn loo daadgureeyo oona indhatiri karo dayax gacmeedyada ilaa 1500 kiiloomitir ee ka sareeya dhulka. Waxa uu sheegay in ay hore u jireen habab ka awood badan Brezhnev oo gubi kara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalabyada military. Haddii Brezhnev uu indhatiri karo markaa jiilka cusub ee hubka laserka ayaa horseedaya burburinta bartilmaameedka ayuu u sheegay telefishinka dowladda Ruushka. Markii la weydiiyay in hubkan oo kale lagu isticmaalay gudaha Ukraine, Borisov wuxuu yiri tusaalihii ugu horeeyay ayaa durba halkaa lagu isticmaalay. Wuxuu sheegay in hubkaas lagu magacaabi jiray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si jees ah isu barbar dhigay wararka laserka iyo waxa loogu yeero hubka yaabka leh ee Naaziga Jarmalka uu daaha ka qaaday si looga hortago guuldaradii dagaalkii labaad ee adduunka. Markii ay sii cadaatay in aysan fursad u helin dagaalka, dacaayad badan oo ku saabsan hub cajiib ah oo noqon lahaa mid aad u awood badan si loo xaqiijiyo barta isbeddelka ayuu ku yiri fiideo. Sidaa daraadeed waxaan aragnaa in bishii saddexaad ee dagaal buuxa Ruushka wuxuu isku dayayaa inuu helo hubkiisa yaabka leh. Dhammaan tani waxay si cad u muujinaysaa fashilka dhammaystiran ee howlgalka. Ku dhawaad waxba lagama yaqaan Sadira, laakiin 2017 warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in shirkadda nukliyeerka ee Rosatom ay ka caawisay horumarinta iyada oo qayb ka ah barnaamij lagu abuurayo mabaadi'da cusub ee ku saleysan hubka. Weerarkii lagu qaaday Ukraine waxa uu soo bandhigay xadka ay leeyihiin ciidamada qalabka sida ee Ruushka kadib Soviyetkii, inkastoo oo Putin uu sheegay in howlgal military oo gaar ah uu qorsheynayo. Hadalka Borisov ayaa tilmaamaya in Ruushka uu horumar la taaban karo ka sameeyay hubka laserka ah oo ah isbeddel ay daneynayaan quwadaha kale ee nukliyeerka sida Mareykanka iyo Shiinaha. Isticmaalka laserka si loogu indhatiro dayax gacmeedka waxay mar ahayd khiyaali ka timid saaxada cilmiga sayniska, laakiin Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaa ka shaqeynayay noocyo kala duwan oo hubkaas ah muddo sanado ah. Kasoo faa'iidada gubista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo indhatirida nidaamyada hawada waxay leeyihiin saameyn istiraatiijiyadeed. Sidoo kale satellite-ka ayaa loo isticmaalaa si loola socdo gantaalada balaastigga ee qaaradaha isaga gudbay ee sida hubka nukliyeerka. Borisov ayaa sheegay in uu hadda ka soo laabtay Sarov oo ah xarunta cilmi baarista hubka nukliyeerka ee Ruushka. Waxa uu sheegay in jiil cusub oo hubka laserka ah oo isticmaalaya banda electromagnetic ballaaran uu ugu dambeyntii bedeli doono hubka caadiga ah. Tani maaha nooc ka mid ah fikrado kheyro caadi ah, waa xaqiiqda, Borisov ayaa yiri. Militariga Israa'iil ma qorsheynayaan inay baaritaan ku sameeyaan dilka wariye Shireen Abu Caaqil oo la toogtay iyadoo ka waramaysa duulaan ee Israa'iil ku qaaday daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay warbaahintu. Wargeyska Israa'iil ee Haaretz ayaa Khamiistii sheegay in saraakiishu ay u muuqdaan kuwo aaminsan in dambi baadhista dilka oo ay mas'uuliyiinta Falastiiniyiintu
ku eedeeyeen ciidamada Israa'iil aanay wax natiijo ah keeni doonin. Diidmada maamulka Falastiiniyiinta ee ah inay baaritaan ku sameeyaan meydka iyo in ay dhiibaan xabadii laga soo saaray jirkeeda si loogu tijaabiyo balaastigga wadajirka ah ayaa natiijada kama dambaysta ah ka dhigaysa mid adag, ayuu yiri wargeyska Haaretz. Muhiimad ahaan ma jiro wax tuhun ah oo laga qabo faldambiyeed, ayay tiri warbixintu, waxayna intaas ku dartay in askarta Israa'iil ee qaybta ka ah weerarka ay ka marakaceen in aysan arkin saxafiga oo ay weerarkooda ku bartilmaameedsanayeen dabley Falastiiniyiin oo hubeysan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa cambaaraysay go'aanka la sheegay in uu qaatay militariga Israa'iil. Wargeyska Haaretz ayaa sheegay in wariyadii Al Jazeera Shireen Abu Caaqil lagu toogtay duleedka magaalada Burqin oo ah tuulo diris la ah xerada xootiga ee Janiin xilli ay ciidamada ka wadeen howlgal. waxa ay sheegtay in dabley Falastiiniyiin ah ay rasaas ku fureen askarta. Mid ka mid ah ciidamada commandoska ayaa rasaas ka soo riday gudaha gaari gaashaaman oo jiib ah oo uu ku furay nin hubeysan, sida lagu sheegay warbixinta Haaretz. Falastiiniyiintu waxa ay ka soo baxeen gidaar gadaashiis halka gaariga jiibka ahi uu wariyaha u jiray ilaa 190 mitir. Al Jazeera iyo maamulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Shireen Abu Caaqil oo 52 jir Falastiini Mareykan ahayd ay dileen ciidamada Israa'iil, waxayna dalbadeen in lala xisaabtamo. Israa'iil ayaa markii hore soo jeedisay Falastiiniyiinta hubeysan inay u badan tahay inay mas'uul ka yihiin dhacdada soo jiidata cambaareynta caalamiga, laakiin markii dambe waxay sheegtay in aysan caddeyn cidda dilka geysatay. Mareykanka, qaramada midoobay, midowga Yurub, Turkiga iyo dalal badan oo ku yaala galbeedka Aasiya ayaa cambaareeyay dilka, waxayna dalbadeen in baaritaan cadaalad ah lagu sameeyo. Wareysi lala yeeshay wax yar ka hor dhimashadeeda, Shireen Abu Caaqil waxay nafteeda ku tilmaamtay inay tahay wax soo saarka Jerusalem, iyadoo iska horimaadka Israa'iil iyo Falastiin uu saameeyay nolosheeda inteeda badan. Saaxiibadeed oo ka tirsan channelka ay dowladda Qatar leedahay ayaa ku tilmaantay in ay ahayd wariye geesi ah oo codka siiya dadka aan codka lahayn.